بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإذا جاوزت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس. أحبتي في الله، وحان كسو جرني كتاب كان الصور من حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وحان سو قارني درسك الصدن إيا السدحاد كتاب كان وحان دحدك جرني قصدي أبي أيوب الأنصاري. هشي وصعوتاي نوم ريسية فإذا جاوزت مركي قدبتو هشو منزلا قري مركي دافتو xasina way murugoonayeen ahluhu dadkii gurigaa degganaa way murugoonayeen oo rasuulkii baa gudbay oo hashii saaran. wa asaabahum waxaa asiibayoo ku dhacayay alya'su quursasho. intay walwalaan oy murugoodaan ayay quursanayeen oy ka sabrayeen inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dib ugu soo noqdo maadaama gurigoodu u dhaafay. baynamaa xilli yashruqu uu ifinayay al amalu yadadiilada iyo rajada fii nufuusi man dad nafyaalkooda, dadkaasoo yaliihim gurigaasi ku xigo. gurigay hasha dhaaftay oo dadkii degganaa ay murugo iyo walwal la soo daristay. gurigaas dadkii dariskiisa ayaa ku sii xigay ooy hasha ku sii socotay. iyagu dadkaas farxad bay dareemayaan, rajay qabaan, iyagu xilin ama idinku soo degtaa. lianna guryaha leen bay ku jiraan, hasha gurina way soo dhaafaysaa, midna way ku sii socotaa. kay soo dhaaftayna dadkiisa walwal iyo murugo ayaa la soo darsayso, ilaan suubanihii baa gudbay oo dhaafaye. qolada ay ku sii socoto in weli hasha gaarin guryahoodana waxaa soo waafaqaysay oo soo ifaysay rajo ay ka qabaan in nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigooda uu ku soo dego. wamaa saalat mayna ka zuulin annaaqatu hashi calaa xaalihaa inay xaaladeeda ku sugan tahay haadihi oo tan oy lugaynayso. walxaal annaasu dadkiina yamduuna ay soconayaan oy tegahayaan fii ithriha raadkeeda, dadkiina way dabayaacayaan, waxaa la fiirinayaa meesha ay ku degayso. walxaal hum dadkuna yatalahafuuna ay ku dhawaaqayaan ama yatalahafuuna ay la gogo-ayaan shawqan hiloobid limacrifati saciidi almaxduudi. shawqan hiloobid ay u qabaan limacrifati saciidi kii liibaanay aqoonsigiisa, kaasoo almaxduudi ku dheefeystay oo ku guuleystay in hashi ay gurigiisa fadhiisato. hashi bay dabayaacayaan iyagoo qalbiga ka walwalayo gubanhayo, jaceyl ay u qabaan cidda bal hashaan gurigiisa ay fadhiisan doonto inay gartaan, ilaan qofkaas waa qof liibaanay oo guuleystay wey. wahum iyagoo yatalahafuuna la jarjarmayo la gogo-ayo shawqan hiloobid limacrifati saciidi midka dhuroobay barashadiisii aqoonsigiisana ay u hilowsan yihiin, kaasoo almaxduudi dheefeystay oo guuleystay oo ku liibaanay nabiga inuu daris la noqdo. xataa balaqad ilaahay hashii gaadhay bay socotay saaxatan meel bannaan, khalaa'an oo waasaca, meel bannaan oo waasaca bay hashii gaartay. amaama beyti abi ayuub alansaari gurigiisa hortiisii ayay gaartay hashi. wa barakat wayna jilba jabsatay fiihaa meeshii bannaaneedee abi ayuub alansaari gurigiisa hortiisa ahayd ayay fadhiisatay. laakina rasuulka calayhi salaatu wasalaam lam yanzil canhaa hashi kama soo degin. hashii markay fadhiisatay abi ayuub alansaari gurigiisa hortiisa meel bannaan ah, nabigu kamuusan soo degin hashi. famaa labithat ma ayna nagaanin hashi an wathabat inay booday oo wandalaqad ay tagtay tamshi xaal ay soconayso. hashii meeshay xoogaa yar ku nasatay, nabigana kama soo degin, kadibna dib bay hashi u dhaqaaqday, way kacday, way booddo, way socotay. warasuulu xaal rasuulkana murkhin lahaa uu u raaricinayo zimaamaha hoggaankeeda. nabiguna hoggaankuu u raariciyey, lianna haddii hoggaanku uu ku adkeeyo hasha waxay noqonaysaa hal la amrayo. si ayna taas u dhicin, hasha firii buu ka dhigayo hoggaankii iyo dhuucii buu nabiga maxaa la dhihi jiray caynkii ama afxirkii buu nabigu u raariciyey.
هجان باليراد ثم ما لبثت هشمين نجارين أن عادت إلى صلابتي أدراجها الرات كذي كصلابتي أو بركة أي فريستي في مبركها الأول ماشي هري أي فريستي بيدب وصل نقطي هشي عند ذلك مركع أكتر مركع يدب وصل لابتي قري أبي أيوب أي فريستي أي غمرت بوحسي الفرحة فرحة إيا فرحت بوحسي فؤاد أبي أيوب الأنصاري أبي أيوب الأنصاري لابتيسي قلبيس أي فرحت بوحسي وبادر وحود دقدقي إلى رسول الله صلوات الله عليه رسولك يؤد دقدقي حقيسا يرحب إساقو سود وين به رسولك إساقو ترحيبين وحمل وحو صوحن باري أبو أيوب متاعه صوبانه ألابتيسا بين يديه هرتيسي وأصو أرورصدي هريب أصو قاتي ألابتي وكأنما وحاد مودا يحمل إنو صور رنيو كنوز الدنيا ذا كادت كذي كلها دمانتها الدنيا ذا كادت كيالي أردن كنوز الدنيا كلها الدنيا ذا كادت كيالي أردن إنو صور رسنا أياد مودا ومضى به وحولا ذي ألابتي إلى بيته قريجيس إلا ودقال إيو هل اسكد لها وينين والبابا إني قريجيس فريستور ربي إساقا كوغوليستي si marka aan loogu qabsanin si degdeg ah markay fariisatay uu ku haadayo nabiga ayuu soo dhaweeyay alaabtiin uu soo rarto xagga gurigiisa uu soo rartay isagoo moodaysa farxadda ka muuqatay maalinkaas kanziyadii adduunka yaalay iyo dhaqaalihii adduunka yaalo dhan inuu gurigiisa u soo raranay dabcan uu soo rartay oo wax nabi maxamed inaad ku guuleysato ka khayr badan dunida ma jiraanba كان منزل أبي أيوب وحو هذا يتألف متك كومو من طبقة دبق فوقها دشيض هذا علية قلصر قرق أبي أيوب وصوبناها وكسو دوين يلبقى يبض بككومنا دبق هوسا يقيب كوري علية وحاوي قل ما كور كدسنا دبق هوسا كوركي سوحا كدسنا قل فأخلى وأبنيي العلية قلك سري أيو كفارجي من متاعه ألابتي سوك صاري إيو متاع أهله ريركي سألابتي وكسو بنيي لينزل إنو دجيو فيها قلك سري رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبنها إنو دجيو لينزل هدي يأذن لقدو ينزل إنو دجيو فاعلك مركز حونقنا يا أبي أيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنو دجيو هدو ينزل قرين اللي ينزل إنو دقوي فيها قلك سرى رسول الله رسولك مركز فاعل قرين لكن النبي عليه الصلاة والسلام صوبنه آثر وحود دورتي عليها دبق سرى وحو كدورتي الطبقة السفلى دبق هوسا كدورتي نبي وحود يعني كرم الربي هوس بان ربا فامتثل وأقبل وفرطومي أبو أيوب لأمره صوبنها أمر كيسي تلذي سوقلك هوسا إنو دقو أيو أقبلي وأنزله وحون دجي صوبنه حيث أحب ماشو جعلاي وقيبته هوسا أيو دجيي ولما أقبل الليل هبينك مركو سوقابلي وآوى الرسول صلوات الله عليه صوبنها وأصو قلبضي وأصو الضمي إلى فراش كيس أو دبقي هوسا سعيد أبو أيوب وحوكري وزوجه حاسكيس إلى العلية دبقي سري كورين وما إن أغلق ما إن صاحر عليهما دشوضا بابها دبقي سري الباب كيس ما إن صاحرا أبي أيوب حاسكيسا حتى التفت إلى من عصدي أبو أيوب إلى زوجه حاسكيس من عصدي وقال وحويري ويحك إنا هوكتو نا قبلنتو ماذا صنعنا محينو سميني wartalada naga hoos baxday waanu khaldanay maxaan sameeynay way xaki waa iska kelimo canaan ah habaar loolama jeed na hoogto maxaan sameeynay ayakunu rasuulullaahi salawaatullaahi calayhi suubanaha miyuu ahaanaya asfala meel hoose wa naxnu aclaa minhu innagana meel nabiga ka sara miyaanu ahaanaynaa taasu caqli miyaa seen ku aqbalnay rasuulka maxaa nooga diidi waynay أنمشي ميان اللغينينا يون سعونينا يون أذيقنينا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبناها الدشي سميان كو أذيقنينا يون دقنانينا
isnama naga hooseynaya an nasiiru miyaan ahaanaynaa bayna annabiyi waalwaxyi suubanaha iyo waxyigiisa meel u dhexaysa miyaan ahaanaynaa ilaan waxyigu iyo diinta cirkay ka soo degtaa idan nabigiina hoos buu jiraa innagaa u dhexayna marka nabigii iyo waxyigii cirka ka imaanayay innaa annagu idan hadday sidaa dhacdayba la haalikuuna kuwa halaagsamay baynu nahay war gablantanan waanu halaagsanay maxaan samaynay wey wasuqida waa la ridayo way dhacday nadaamo iyo welwel iyo shallayto fii aydi zawjayn labadii isqabay gacmahooda waxaa ku dhacay murugo iyo welwel wahumaa iyagoo laa yadriyaani aanan garanaynin maa yafcalaani waxay sameeyaan waa xilli dambe waa la hurdaya suubanaha waa saaxday waxay sameeyaan ma garanayaan welwel iyo murugo ayaa la soo daristay walam taskun mayna xasilin nafsaahumaa labadoodii naf waa odaygii iyo xaajiyadiise bacda sukuuni xasilid qaar ka mid ah wax yar hadda ma ayna degin naftooda ilaa xiina goorti maahina inxaaza ay u soocmeen oy u yara dhaqaaqeen ilaa jaanibi alculliya gurigii sare dhinaciisa markay u yara sikadeen alladii dabaqaasoo laa yaqacu ama qeybtaasoo laa yaqacu aanan ku dhacaynin oon ku aadaneen fowqa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam habeenkii welwel iyo murugo ayaa la soo daristay ilaa ay indhahooda isgeli waayeen oy hurdi waayeen markii dambe waxay sameeyeen waxay u yara durqeen meeshii nabiga aanan ku aadaneen guriga qeybtii suubanuhu ku aadaneed bay ka yara sikadeen geeska oon suubanaha ku aadaneyn oo dabaqii sare ay u dhaqaaqeen waltasamaahu wayna laasimeen meeshii geeska ahayd laa yabraxaanihi iyagoon ka zuulaynin oon ka dhaqaaqaynin ilaa maashiyeyni xaale ay yihiin laba socdoo lugaynayo cala al adraafi faraha fiidooda ku lugaynayo mutabaacidayni xaale yihiin laba ka fogaanayo can ilwasati bartanka habeenkii markii hurdo ka imaan wayse ayay durqeenoo geeska qolkiibay u sikadeen markay rabaan inay dhaqdhaqaaqaan oo wax soo qabsadaanna faraha fiidoodii bay ku istaagayaan oo guriga leenka geeskiisa ay ku soconayaan waxayna ka fogaanayaan kala bartankii suubanaha ku aadaneed korkiisa ayay iska ilaalinayaan inay ku socdaan waa dad rafaasan habeenkii o dhan saasay ku baryeen falamaa asbaxa markuu waagu u baryay abu ayuub qaala wuxuu ku yidhi linnabiyi calayhi salaatu wasalaam suubanaha intuu u yimid baa wuxuu ku yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa uqmidu lanaa jafnun indhaheennu isma ina gelin indhahaanada jafniga waa galka indhaha macnaha qolofka kore indhaha saaran maqaarka koraa laga wadaa indhaheennu ma ayna isgelinoo ma aana saaxanin fii haadihi leyla xalay wey laa ana aniguna ma aanan hurdin walaa ummu ayuubna ma ayna saaxan oo indhaheennu lama laabin oo indhahan isma gelin baa laga wadaa faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa mima daaka yaa abaa ayuub abu ayuubow maxaa dhacay dhib ka dhacay ood la hurdi wayseen maxay tahay qaala abu ayuub wuxuu yidhi dakartu waxaan u sheegay suubanuhu annii anigu calaa dahri beytin guri dushiisa inaan ku sugnahay gurigaasoo anta adigu nebi maxamedow taxtahu hoostiisa aad degan tahay waxaan dhahay buu yidhi war anigu guri adigu hoostiisa aad degan tahay baan kor ka saarnahay weynii anigu idaa taxaragtu markaan dhaqaaqo rasuulka allow tanaahara calayka waxaa kugu soo firdhismayo kugu soo daadanayo dushaada alqubaaru boorkii baa kugu soo daadanayo ilaan gurigu shub ma ahan ismiidna ma ahan waa geedo un la isdudul saaray markay dadka kor saaran dhaqdhaqaaqaan ciiddii iyo boorkii iyo qolfoofkii iyo qashinkii baa nabiga kusoo daadanay oo fa aadaaka boorkii markaas wuu ku dhibayaa rasuulka allow intaa kelima ahane humma innii anigu qadowtu waxaan ahday beynaka wa beyna alwaxyi adigii waxyigii kugu soo degayay baan idin dhex galay oon idinkala teeday oo idinkala dhex galay faqaala lahu rasuulu calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu ku yidhi hawin calayka yaa abaa ayuub abu ayuubu isdeji welwelka iska dayo hooshaas fududayso innahu sha'niya arfaqu binaa annaga waxaa noo dhimrin badan oo noo fudud oo noo sahlan an nakuuna inaan ahaano fi sufli qeybta hoose war abu ayuubow hoosha sidaa ma aana isdeji annaga waxaa noo sahlan qeybta hoose inaan deganaano sababtana waxaa weeye likathrati man dad farabadiinkiisa iyo farabadnaantiisa yakshaanaa noo imaanayo na soo daboolayo min annaasi dad ah ilaa nabigu waa martiyo meeshuu ku cusub yahay saxaabadiio aad u xiisaynaysana way soo booqanhayaan
dadkana soo booqanaya aad u badan waa yeelli iyo dumar iyo dad aan jaraanjarada soo kori karin baa ka mid ah sidaa daraaddeed inaan hoos deganaana noo fiican abu ayuubow raalli baan ku nahay istaji qaala abu ayuub wuxuu yidhi famtathaltu waan fartoonaaday liamri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa nabiga hadal laguma celin kare ilaa an kaanat ilaa ay ahaatoo la gaaray leylatun habeen baaridatun oo aad u qabow fankasarat lanaa waxaa naga jabtay jaratun shaambo ama ashuun iyo weelbiyood baa naga jabay wa uriiqa wuu daatay oo waa la daadiyey maa'uhaa biyaheedii filculliya dabaqii saray biyaheediina ku daateenoo lagu daadiyey ashuun aan biyaha ka isticmaalayn oo dabaqa kore noo saarnaabaa jabay baalka wuxuu ka samaysnaa jilay kadibna iyo caro la qasay markuu jabay biyihii baa dabaqii kore ku daatay dabaqiina biyi hadday ku daataan suubanahay gaarayaan waaba qisatii hore ka dhib badan faqumtu waan kacay buu yidhi ila almaa'i biyihii baan u kacay ana anigii wa umu ayuub aniga xaaskaydaba walaysa lanaa nooma sugnaanin ilaa qatiifatun go' baanu haysanay oo kunnaa aanu ahayn natakhiduha kuwa ka yeesho lixaafan go' aan hogsanno wey lixaafku waa go' la hogsado wajacalnaa waxaan gudagalnay nushifu inaan qallajinayno bihaa go'i alma'a biyihii aan ku qallajinayno daatay khawfan baqid aan ka baqayno min an yasila inuu gaaro biyahaas ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam biyahaas inay nabiga gaaraan baanu ka baqaynay qabow daran baa jiro halkii go' aynu hogsanaynay baan biyihii ku qallajinaynaa annagana qabowgii iyo barafkii baa na gelahayo waxaana ka baqaynaa inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam biyihii gaaraan cajiib wey falamaa kaana asabaaxu markuu waaga baryey khadowtu cala rasuuli salawaatullaahi calayh waaga markuu baryey baa nabiga ku kallahay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam oon ku jirmaaday qisadu halkaa ha inoo joogto hada wabilaahi towfiiq wasali allaahuma calaa nabiyina muxamed bni cabdillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim wassalaamu calaykum waraxmat ullah